Bismillah, magacayga Fartuun Maxamed Cabdullaahi. Waxaan ka mid ah ardayda ka qalin jebisay Somali Medical Training Center. Waxaan rabaa inaan ka sheego dhiigkarka uurka oo xilliga uurka imaado. Dhiigkarka uurka waxaa la dhahaa in hooyada blood pressure-keeda uu sare u kaco inta lagu guda jiro uurka oo cadeeyo dhiigkarkaasi qof dhakhtar medical profession oo caafimaadka bartay. sidoo kale waxaa lagu qeexaa in hooyada ugu yaraan 2 ilaa 3 calaamadood lagu arko oo kala ah in hooyada blood pressure-keeda uu sare u kacsan yahay, in hooyada protein lagu arko kaadideeda, in sidoo kale ay baran tahay hooyada. waxaas oo dhan waxaan dhigi karnaa dhiigkarka uurka. Classification-ka loo qeybiyo dhiigkarka inta hooyada uurka ay leedahay waxaa ka mid ah preeclampsia, in hooyada 20 isbuuc markii ay marayso uurkeeda uu dhiigkar ku imaado. sidoo kale waxaa kaloo la chronic hypertension, in hooyada hore ay dhiigkar u qabtay. sidoo kale waxaa ka mid ah in hooyada 20 isbuuc ka hor dhiigkar lagu arko. waxaa u nugul dhiigkarka marka oo risk factor u ah hooyo walba oo da'deeda ay ka yar tahay 15 oo uur qaaday, iyo hooyo walba oo da'deeda ay ka weyn tahay 35 oo markaas uur qaaday. waxaa kaloo u nugul hooyada family history-geeda ay u leeyihiin cudurka oo dhiigkarka. sidoo kale waxaa u nugul hooyada udiga oo cayilan, sidoo kale hooyada oo kiliyaha dhibaato ka qabta, sidoo kale hooyada uurka hore urarkeeda hore uu ka soo halaabay. waxaa kaloo ka mid ah hooyada mantaanaha sido uurka. waxyaabaha sababa isagana waxaa ka mid ah in hooyada ibideeda oksijiinta ay ku yaraato, in hooyada difaaca jirkeeda uu daciif u yahay, iyo in hooyada genetics dhaxal ay u leeyihiin cudurka dhiigkarka, iyo in hooyada stress-keeda uu badan yahay, walwalkeeda zaid uu yahay xilliga uurka ay leedahay, ayadana waxay ku keeni kartaa dhiigkar. heerka dhicitaanka adduunka oo dhan waxaa waay 5 ilaa 15%. markii lala barbar dhigo hooyada ugubka hooyada dhashooyda ahna waa 10% hooyada ugubka heerka dhicitaankeeda, hooyada oo dhashooyda ahna waa 5%. complication-ada ay leeyihiin waxaa ka mid ah complications-ka iyadoo loo fiirinayo hooyada iyo cunuga. hooyada cunuga markii aan ku hormarno complication-ka cunuga ay ku leedahay waxaa dhibaatada cunuga ay ku keenayso waxaa ka mid ah oo koritaankiisa uu yaraado, oksijiinta ay ku yaraato, neefta ay ku dhagto, in cunuga isagoo bilihiisa dhameysanin uu dhasho. complication-ada oo hooyada dhibaatada ku keeni karana waxaa ka mid ah ayadoo loo qaybinayo inta hooyada uurka ay leedahay iyo markii ay foolanayso iyo markii ay dhashay kadib. markii ay uurka ay leedahay hooyada dhibaatooyinka ay ku keeni karto waxaa ka mid ah in hooyada dhiigbax ay ku keento, in maskaxda dhiig ku furto, kiliyaheeda ay saameyso, iyo sidoo kale hooyada araggeedana in aydan dhibaato ay u geysato. inta ay foolanaysana waxaa ka mid ah hooyada in dhiigkarka uu sii kaco, uu zaid u noqdo, eclampsia uu noqdo. sidoo kale in hooyada postpartum hemorrhage ay ku imaado ayadana dhiigbax oo xilliga foosha ay ku timaado. sidoo kale markii hooyada markii ay dhashay kadibna dhibaatooyinka ay ku keeni karto waxaa ka mid ah in hooyada ay ku keento shock, hooyada inay miir daboolanto, sidoo kale hooyada inay sepsis ku keento oo hooyada dhiigeeda fashion u yeesho, sidoo kale in hooyada psychosis hooyada waali ay ku rido waasho.